abwaan xasan dhuxul laab saalax gudoomiyaha xidigaha geeska oo aan waqti badan ku bixinay saanu helo oo xog uga helo maadaama kooxdii ay tiri gudoomiyihii xilkii baanu ka qaadnay oo waan casilay gudoomiye waan kaaga mahadcelinay inaad waqtina siisay sidaad aragtaa kooxdii xubnihii kooxdu waxay yiraahdeen gudoomiyihii xil gudasho la'aan buu sameeyay sida darteed xilkii baanu ka qaadnay maxaad kale adigu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta saxaafaddu aad bay soo garaacaysa oo arrintan issue bay ka dhigeen dhinaca kale marka laga eego horta wax internal problems ma jiraan xidigaha geeska muran gudaha ma jiro dee kooxda xidigaha geeska 6 sano jirtayba marka laga reebo 8 bilood oo gudoomiyaha ka ahaa waxa laga yaabaa in culayska maamulka fanku leeyahay ay aad u adag tahay waliba niman caana inaad isku hayso oo maamusho inay adag tahay taasina ay suuro gashay iyagoo ixtiraam iyo dhiganugeyl iyo midnimo intaabay la garab taagnaa nurudiinow xaqiiqatan muddo 2 toddobaad ka hor ayaan saaxiibaday mid iyo si wadaraba ugu sheegay in aanan maxay ahaydey gudoomiye xidigaha geeska ka sii ahaanayn howlahayga gaarka darteed 2 qodob baa arrintaasina aan ka xusi karaa dee horta nolosha vision ka fog kanfanka ayaan ka leeyahay jaamacaddan aan dhigtaa waqtigii fara badnaa xidigaha gelin jiray aan fanka gelin jirnay ama habeenimo u badnayd ama dhinacyada nolosha ayaan jecelahay horta inaan geliyo marka laga yimaado taa qodob kaloo muhiima jira oo sababay inaan maxay ahaydey hawsha ka yar nasto أنا وحسكانين family man عيال كيجو إنجليز كيكون ولاين دقناين قبل هم وان كسر رأي كانوا مكدقين وحيب بهين وقت لسيو وحيب بهين مدرسة لقيه وحيب بهين دكس لقيه هرمها صورا واحد كان إن شخصيهان عن سكوذي كريوايو حوله كو حدي تاجنا مركزت ما نكستا حول تاجويان وكفر أحسن هاي كل يتولى محا هذي كي قبتها واكي كلا رب إيجا كرتي بدن باتشوجا حديقة هجيس كنا واضلت ولا نجارو أي شيء بدو مدايسي ويشريان أو ويسك مبدأ أنا هذا الحين كتجينا حبني ما كم تجين وحيد تلاقي وحيد سلام ولا قربت حاجة هاي وحدي شكتي إن أدو كنت بسي inaad mashquulshay oo mashquulka darteed aanad hawlihii siday ahaayeen u wadi karaynin maxaa keenay bay kula tahay in iyagu intay warbaahinta ka hadlaan ay yiraahdaan laab saalax waxaanu ka qaadnay gudoomiyanimadii xeerir baan u jabiyay niyo horta maxay haday dee xilgido shalaan bay ilaahay ana kula saacad kasta hawsha xidigu way taagantay waqtigii farabadnaa boqolkiiba 9 kullu min jiray ayaa meesha ka baxay intaan saragnaa yar intaan hawlaha kooxda ka wada hadalaa yar intaan isku nimadna bariyahan aad buu yartay anoo waqtigeygii aan dhinacyo kala geliyay laakiin waa rag saaxiibadayo maxamed axmed bakaal iyo dhammaantood waa ragan isku midnahay kii qabta waa kii kale wax kale oo intaa dhaafsiisani ma jiraan warbaahintan waxaan sheegayaa arrintan issue ma wax la isku hayaa ma jirto rag magac wada ka dhaxeeyaan nahay wax wada laanahay wax soo wada bilaabanahay wax soo wada aasaasannahay dadku xurguf iyo isqabasho way timaadaa laakiin arrintan total wax isqabsashaa iyo murana ma jirto waan idin ka mahad celinayaa ma santeen abwaan khilaafaadkiinu kooxda kule dhisan ee Soomaaliyeed ee magacaanka ee la dhageystatiin fankeeda khilaafaadkiinu inta badan wax noqday sidii fanka oo uu soo noqnoqdaayo isaga laftiisa wala dhageysta dadkii warbaahinta ka daalacdaan maxay kula tahay sababaha aad intaad gudaha uga xallin kari weydeen oo warbaahinta ugu soo baxo oo ay issue laga dhigo neerta wax kasta oo gudaha ku xallinaaba wax kasta gudaha ku xallinaa kooxda inta badan kadimka way kala maqan tahayba tala kasta waan isla rogrognaa xeerar baanu leenahay wixii soo baxaa inta badan waxa gudaha iyaga iyo dibadda sidoo ugu soo baxaa way yartahay
haddana dee waa dad wada caanahoo kolley tole saxaafaddu deendhagalay ku eegaysaa waxaa laga yaabaa hadalkaa aan misaalayn si kalaba loo dhigo markaa wax mushkilada oo jirtaa ma jirto waa dad xidiguhu fan wadaag leh soo wada noolaa saaxiibba ah iminkana waanu wada joognay waa saaxiibbaanu nahay ma kala tegano markaa waxaan ka hadlayaa uun fahmayeenaba waan ugu dambayn mar haddii aad aragtay culays inuu adigu ku saaran yahay wakhtigaagana aad siisay ma jirtaa qoraal rasmiyaha ama is-afgarad aad udu gudbisay oo tidhi sidaasaa jirta oo kooxdii aad u sheegto ku tidhi sidaa igu ogaada dee horta gaargaar waan ku sheegay maasijna dhammaantood inay cid maxay ahayday ay u igmadaan waan u sheegay taasina dee cid kastoo kooxda ka mid a dee waad weydiin kartaa inaan iscasilo iyo in laga qaado wax farqi u dhexeeyaaba ma jiraan meel ma wax wada wadnaa inay meeshaas jirtuun weeyaan way jiraysaa kooxdu way jiraysaa kooxdu waa waxaan ka midaysan nahay dee xilkii iyo kooxdiina way kala wen yihiin waqti badan baa naga soo galay tac badan baa soo gelinay way jiraysaa kooxdu